Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka hore aan isla fahanno qaabka aad u bilaabi lahayd Excel, Microsoft Excel file ah haddii aad rabto inaad furto. Dhowr qaab ayaad u furi kartaa. Waxaad samayn kartaa inaad right click aad dhahdo, kadib new aad ku dhufato. New halkaasina waxaad kasii dooran kartaa Microsoft Excel worksheet, amaba waxaad aadi kartaa qaybtan searchiga haddii aad isticmaaleyso Windows 10 amaba 11 uu leeyahay. Waxaad ku qoreysaa halkaasi Excelka hadda aan isticmaaleyno waa Excel 2016 waa 2016. Waxaad isticmaali kartaa 19 amaba ka sare. Dhammaantooda waa isku mid marka laga reebo waxyaabo yaryar ay ku kala duwan yihiin dhinaca featureska. Tusaalahaan haddii aan halkan ka galno, waxaa inoo soo muuqanaya interface-kan wejigan hore. Sida aad u jeedaan, waxa uu ina siinayaa template-yo kala duwan oo aan isticmaali karno. Waa naqshado kala duwan, hadba nooca aan rabno inaan wax u xisaabno ayay ku xiran tahay shaqada aan rabno inaan Excelka ku qabano. Amaba waxaan isticmaali karaa mid iska blank ah oo iska bannaan oo wax aan ku qornayn, amaba waxaan isticmaali karaa naqshad diyaarsan. Haddii aan rabo naqshadaha businesska la xiriira waa kuwan, haddii aan rabo naqshadaha waxbarashada la xiriira waa kuwan. Halkaasi ayaan kasii dooran karaa, hadba nooca aan rabo waan ku qori karaa. Sidoo kale waxaan si toos ah u gali karaa qaybta midka iska bannaan oo aan rabno inaan wax ku practice gareyno. Dhowr shay ayaa muhiim ah oo basic inaad baratana ay tahay marka la joogo Excelka. Sida aad u jeedo, marka hore aad fureyso haddii uu kugu soo furmo dhanka inuu ka bilowdo oo midiga, waa marka aad diiwaan gelinayso macluumaad carabiya. Tusaale ahaan, waxaad aadaysaa page layout-ka, waxaadna kasoo bilaabi kartaa dhammaan dhanka midig. Haddii aad rabto inaad carabiya, magacyo carabiya, qoraal iyo amaba documenti carabi ku baxaya haddii aad rabto inaad ku shaqeyso Excelka, sidaas ayuu u soo xisaabaya. Xataa shiitaadka halkaasi ayuu ka bilaabaya. Haddaba buuggan aan u jeedno aad furnay waxaan ugu magac darnay book 1. wuxuuna ka koobnaan doonaa dhowr sheet. Aan u laabano dhanka bidix aan ka bilaabno, maadaama inta badan aan ku practice gareyno qoraallo iyo documentiyo ku baxa af Soomaali ama afka Englishka. Sheet 1 ama sheet 2 ayaan sii furi karaa, sheet 3 ayaan sii furi karaa, sheet 4 ayaan sii furi karaa. Waxa oo dhan oo aad u jeedo pages waaye oo ka tirsan documentigan koowaad ee aan furnay ee la yiraahdo book 1. Sheetadkan waan iska masixi karnaa midkii aan dooneyno. Right click delete ayaan leenahay, right click delete ayaan leenahay. Halkan sheet ayaan hadda ku bilaabi doonaa. Sheet walba oo Excel ah waxa uu ka kooban yahay sida aad u jeedaan kolomyo loogu magac daray xarfaha Englishka A, B, C, D, E, F, G ilaa dhammaad. Ma lahan dhammaad oo waa uu sii soconayaa inta badan. Waxaad u jeedaan hadda X markaan tagno, Y, Z aan sii tagno, A, B, C, D saas uu ku soconayaa ilaa haddana waa uu sii labalaabayaa. Haddii aan niraahno dhanka nambarada, isagana 1 2 3 ilaa tiro aad u fara badan. Waxay sheegaan in ka badan 17 bilyan oo cell inuu leeyahay. Cellka waxaa loo yaqaanaa halka ay iska qabtaan column-ka iyo row-ga. Column-yadu waa halkan oo ah tiirarkii, rows-kina waa kuwan safafkii weeye. Halka ay ku kulmaan ayaan u naqaanaa cell. Cellkan magac ayuu leeyahay. Tusaale ahaan, cellkan haddii lagu yiraahdo magaciisa waa maxay, waxa uu noqonayaa G11. Waxaan ku bilaabeynaa column-ka uu ka tirsan yahay iyo row-ga.
safka uu ka tirsan yahay. Magacaasi ayuu qaadanayaa G11. Haddii aan meel un isaga dhufano, T waxay noqonaysaa 17. waa uu yara highlight gareynaya haddii aad u jeedo, madow yar ayuu ka dhigayaa markii aad ku dhufato cell, si uu kugu tusiyo safka uu ka tirsan yahay cellka aad adiga markaa aad joogto. Hadda waa O14 ayaan joognaa. Inaad magacyadaasi barato waa muhiim, sababtoo ah hadhow waxaan isticmaali doonaa formulas halkaasi lagu qorayo si loo xadido cell walbo magaciisa. waa muhiim. intaasi ayaan kusoo koobayaa. Range ayaan baran doonaa casharka ku xiga iyo macluumaad kale oo Microsoft Excel kala xiriira.